abaaruhu waa mashaakil adduunka ka dhaca laakiinse cid walbaba ama dowlad walbaba ama shacab kastaba sibay ula tacaalaan ula dagaalamaan. abaarta Soomaaliya waa abaar soo noqnoqota oo u baahan in laga hortago. ka hortagidaysana waxa weeye in aqoon gaar ah loo leeyahay ayaa roon. waxaa si gaar ah uga mahadinayaa xukuumadda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka baan iraahdo intaba in ay intii tabartooda ah ay gacan ka geysteen u gargaaridda ummadda Soomaaliyeed. hase yeeshee abaartanu waxay u eg tahay abaartii la dhihi jiray daba dheer oo kale, maxaa yeelay waa waqti dheeray socotaa, welina waa taagantahay. ilaahay ha naga ilaaliyo. waxa weeye abaaraha noocana markay dhacaan waxaan aqoon ahaan ugu leeyahay waxay tahay abaar laba wejilaa la yiraahdaa. markii sidan oo kale abaaray u dhacdo waxaa soo raaca dayr ama xilli roob badan uu dhaco. roobkaas oo asagana abaar weji kale leh oo dhibaatooyin badan keensanaya. waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa two faces of the drought, laba weji ay leedahay. tusaale markaan soo qaato magaalada beledweyne ayaa tusaale loo soo qaadan karaa. hadda abaar baa jirta, waa la dhibaysan yahay, ummaddii waxay u baahan tahay gargaar. waxaa ku xigaya sida caadadu ahayd, ilaahay ha naga badbaadiye, in uu imaado roob aada u badan oo abaartii intuu dadka u geystay ka badan inuu geysanayo. marka waxaa loo baahan yahay in laga taxadiro oo la ogaado dhibaatooyinkaas inay soo socdaan. inkastoo dhaqaalaheennu waddan soo koraya aan nahay, dhaqaaluhu iska liito, mucaawano dibadda ay wax un lagu socsocdo, waxaase u baahan feejignaan badan in la qabo, la ogaado in abaartan waxa ka dambeyn kara abaar kale weji kale leh oo ah fanacuudu billah, ilaahan ka magan gelnay inaysan nagu imaan roob mahiigaan ah oo dalka qaadayo oo weji kale leh. isagana waxa weeye waa abaarta wejiga kale labaada. taasaan aada iyo aada uga digayaa. waayo aragnimadaydu waxay tusaysaa abaaraha. waxa weeye waxaan bilaabay inaan daraasad ku sameeyo 1925 siday wax u dhaceen waddanka, inta abaaro soo martay, inta roob mahiigaan ah oo dad badan wax gaarsiiyey. marka waayo aragnimadaasaan u leeyahay. waa ka digayaa marka abaartan in loo diyaar garoobo roob mahiigaan ah oo abaartii waxba aan dhaamin.